waxaa sii xoogaysanaya khilaafaadka ka dhexeeya xubnaha ka wada tirsan golaha sare ee maamulka dalka Suudaan kuwaasi oo ka kala socda axsaabta madaxa bannaan ururada rayidka ah iyo golaha militariga ee dalkaasi. khilaafkani ayaa ka dambeeyay kadib markii uu shaaciyay xubin ka mid ah golaha isbedelka iyo xorriyadda ee dalka Suudaan in lagala noqday ilaaladii gaarka ahayd ee ilaalinaysay isagoo isla mar ahaantaasina xubintani ka tirsan golaha sare ee maamulka dalka Suudaan waxaana uu militariga ku eedeeyay inay doonayaan in dalka dib ugu celiyaan xilliyadii laga soo gudbay balse taliyaha sare ciidamada Suudaan ahna gudoomiyaha golaha sare ayaad moodaa inuu ka horeeyay arrintaasi isagoo sheegay in ay san suurtagal ahayn in ciidamadu ka awood bataan golaha isbedelka iyo shacabka balse ay golaha isbedelku afduubayaan nidaamka kala guurka dimuqraadiyadda lagu wareejinayo dalka Suudaan. dhanka kale xubno ka tirsan ururada ay ku midoobeen mihnadlayaasha ayaa sheegay in loo baahan yahay in meesha laga saaro nidaamka isku dhafka ee militariga iyo shacabka ka kooban ee dalka Suudaan maamulkiisa gacanta ku haya iyagoo sidoo kale codsaday in meesha laga saaro dastuurkii la ansixiyay kadib markii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore talada dalkaasi ayay Umar Hassan al-Bashir. laakiin ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan oo shir jaraa'id uu qabtay kaga hadlay arrintaas ayaa sheegay in aanay suurtagal ahayn taasi isagoo shacabka ugu baaqay inay ku taagnaadaan dastuurka la ansixiyay isagoo sidoo kale ciidamada u soo jeediyay iyo xubnaha kale ee mihnadlayaashaba inay ka fogaadaan khilaafaadka iyo waxyaalaha dhalin kara iska hor imaatin. ra'iisul wasaaruhu waxa kale oo intaasi ku daray in xaaladda lagu soo dabaalo nabad iyo wada hadal balse eedeymaha ay hawada isku marinayaan golaha militariga iyo sidoo kale xubnaha madaxa bannaan ayaa sii siyaaday kadib markii uu dhacay isku daygii inqilaab salaasadii aynu soo dhaafnay ee toddobaadkii hore. ilaa hadda ma jirto jawaab rasmi ah oo ka soo baxday dhinaca mihnadlayaasha oo ku saabsan hadalka ra'iisul wasaaraha iyo baaqa uu soo jeediyay balse ururka ayaa ku adkaysanaya in loo baahan yahay in golaha militariga laga fogeeyo maamulka isla mar ahaantaasna la dhiso xukuumad rayid ah taasi oo maamusha dalka. waxaana ay sheegeen in militariga hadda haystaan uu waxba dhaamin militariga hore looga tuuray ee Umar Hassan al-Bashir uu hogaaminayay. xaaladda Suudaan ayaa moodaa inay sii xumaanayso maalmihii u dambeeyay kadib markii xubno ka tirsan dadka ku nool bariga Suudaan gaar ahaan gobolka Badda Cas ay xidheen wadooyinka tareenada gobolkaasi soo gala dekedaha ku yaala gobolkaasi iyo sidoo kale iyagoo xidho ugu dambeyntii madaarka magaalada Port Sudan ee xarunta gobolkaasi iyo weliba dhuunta shidaalka u keenta caasimadda Suudaan ee Khartoum. abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.